salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulan wacan saaxiibayaal daawadayaal meel kastoo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan idil ahaantiin waxaad kusoo dhawaataan wararka runsheeg t v. qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah abiy axmed oo dalab xasaasi ah usoo jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo, qoorqoor oo soo saaray liis musharaxiinta golaha aqalka sare labada kursi ka haray galmudug islamarkaana ka reebay madaxweynihii hore ee maamulkaasi. abaabul uu magaalada dhuusamareeb ka wada xaaf ayaan idiin soo gudbin doonaa. waxaad kaloo warkeena aad ku daawan doontaan dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo markii ugu horeysay soo bandhigtay waxa ay isku hayaan iyaga iyo midowda afrika. intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada aan idinkugu soo gudbin doono inta aad daawanaysaan warka runsheeg t v. haddii aad nagu cusub tihiin waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe-ka aad noo saartaan barta youtube channelka aad naga daawanaysaan ee runsheeg t v oo had iyo jeer aad ka heli doontaan warar xaqiiqda ku salaysan. aynu ku bilowno. abiy axmed ayaa dalab xasaasi ah usoo diray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo, iyadoo madaxweyne farmaajona uu siiyey qorshe la xiriidha habka looga adkaan karo kooxaha isbahaysanaya ee ay ugu weyn tahay TPLF ee ku hanweyn inay la wareegaan gacan ku haynta caasimadda dalka Itoobiya. iyadoo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed uu wajahayo xaalado cakiran oo dhinaca qalalaasa siyaasadeed uu dalkiisa kula jiro isla markaana uu kala kulmayo kooxda TPLF iyo xoogaga kale ee garabka ku siinaya ayaa waxa uu dadaalo joogto ah ugu jira sidii wadamada xiriirka dowla leh ee dowladda Itoobiya uu uga heli lahaa taageero dhinaca ciidanka iyo hubka, iyadoo uu goor sii horeysay xiriir kala duwan uu la soo sameeyay dowladda federaalka, gaar ahaan madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo uu ka dalbaday in ciidan iyo hub ay dowladda federaalka ku taageerto dowladda Itoobiya si loo soo afjaro hanka TPLF iyo kooxaha kale ee caawinaya la xiriira inay gacanta ku dhigaan magaalada caasimadda u ah dalka Itoobiya ee Addis Ababa. madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay in qorshe la xiriira sidii uu ku guuleysan lahaa howlgalkaas oo ah qorshe dagaal uu siiyey ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed. inkastoo aan la xaqiijin qorshahan hirgelintiisa inay ka go-an tahay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya, saatee madaxweynaha dalka maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa waxa uu sheegay in kaliya kooxdaasi looga adkaan karo in shacabka dalka Itoobiya ay midnimo muujiyaan islamarkaana dowladdu ay howlgeliso saraakiishii kala duwanaa ee dalka Itoobiya ee howlgabka noqday, kuwaas oo qaarkood ku sugan gudaha dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. waxaana qorshahan ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed ee la xiriira hagida dagaalka ka dhanka ah kooxda TPLF uu ka helay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay qayb ka noqonaysaa dadaalo Abiy Axmed uu ku doonayo in dowladaha dariska ay ugu gurmadaan dowladda Itoobiya si gabi ahaanba loo soo afjaro kooxda TPLF oo qabsaday deegaano iyo degmooyin muhiim ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka dalka Itoobiya. Abiy Axmed ayaa rajo ka qaba in Soomaaliya ay ku taageerto hub iyo ciidamo fara badan oo qayb ka noqda howlgalka Itoobiya ka soconaya. hase ahaatee wararka soo baxay ayaa sheegaya in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay codsiga usoo gudbisay Itoobiya ay sheegtay in wadatashi kadib go-aanka ugu dambeeya Itoobiya ay la wadaagi doonaan. dowladaha Itoobiya, Eritrea, Soomaaliya waxa ay leeyihiin hogaanadooda madal iskaashi oo saddex geesood ah oo ay kaga arrinsadaan isbedelka geeska Afrika iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen dhinacyo badan oo ay danwadaag ku yihiin. Eritrea ayaa waxa ay si toos ah u faragelisay dagaalka ka soconaya Itoobiya, iyadoo ciidamo fara badan ugu deeqday xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed, kuwaas oo ka dagaalamaya xadka kala qeybiya Itoobiya iyo Eritrea. maxay isku hayaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale midowda Afrika ciidankooda ku sugan Soomaaliya ee AMISOM? wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa faahfaahin ka bixiyay kulamadii ugu dambeeyay ee ra-iisul wasaare Roble uu la yeeshay safiirada 15 dal oo xubin ka ah
golaha ammaanka iyo nabadda midowda Afrika halka uu marayo qorshaha ka bixitaanka Soomaaliya ciidanka midowda Afrika ee AMISOM. wasiir maxamed cabdirasaaq oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in kulankii ay yeesheen ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo kulamadii ka horeeyay ee safiiradan ee maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho looga hadlayay qorshaha la doonayo in AMISOM looga saaro Soomaaliya kaas oo ay aad uga cagajiidayaan ururka midowda Afrika. kulamadii ugu dambeeyay waxaa si gaar ah diiradda lagu saaray maxaa noo qabsoomin maxaan isku diidanahay iyo sidee waqti yar ee ka haray sii joogitaanka dalka ee AMISOM u sii wadi karaan go'aanka la isku raacsan yahay ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda maxamed cabdirasaaq. waqtiga loo qorsheeyay howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa ku eg bisha soo socota ee December 31 waxaana dowladda federaalka Soomaaliya ay doonaysaa in dhamaadka sanadkan ay AMISOM dalka isaga baxdo halka dalalka ay ka soo jeedaan ciidamada AMISOM ay ka cagajiidayaan go'aankaas iyaga oo doonaya in waqtiga loo kordhiyo si dalka ay u sii joogaan. mar wasiirka la weydiiyay sababta ay mar hore ugu shaqeyn waayeen in isfaham laga gaaro go'aanka bixitaanka AMISOM ayuu sheegay in dowladda Soomaaliya ay sanad ka hor diyaarisay oo ay qaramada midoobay u gudbisay qorshe cad oo AMISOM waqtigii loo qorsheeyay dalka uga bixi karto balse wuxuu xusay in qorshihii dowladda Soomaaliya uu ka socon waayay midowda Afrika. qorshaha loogu talagalay kala guurka Soomaaliya waxa ay ku adkaysatay in la qaato soo jeedinteeda xitaa haddii qorshaha aan la rabin la qaato ciidamada AMISOM oo ay kaabayso qaramada midoobe waxaa in muddo ah noo sii socon lahaa wadaxaajoodka laakiin waxaa nasiib darro ah in markii horeba aysan anagu qorsheeni nala qaadan waana halkaas meesha la isku diidan yahay ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane maxamed cabdirasaaq. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmo ka hor soo saartay go'aan ay dalka uga erinayso ku-xigeenkii wakiilka midowda Afrika ee Soomaaliya Simon Mlonga kaas oo 7 cisho loo qabtay in dalka uga baxo waxaana go'aankaas uu abuuray mudmadow iyo kulamo isdaba joog ah oo madaxda Soomaaliya iyo midowda Afrika ay ka yeelanayaan arrimaha lagu eriyay wakiilkaasi. wasiirka arrimaha dibadda mudane maxamed cabdirasaaq ayaa hore u sheegay in Mlonga lagu helay in uu isku dayay inuu is-horistaag ku sameeyo baaritaan dadkii ciidamada AMISOM ku xasuuqeen deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. ciidanka AMISOM ayaa Soomaaliya ku sugan in ku dhow 15 sano mana jirto tallaabooyin muuqda oo howlgalkooda Soomaaliya ka soo hoyeen sida ay ku doodayaan dadka falanqeeya arrimaha ammaanka. qorqor ayaa soo saaray liiska musharaxiinta golaha aqalka sare ee ka harsanaa maamulka Galmudug iyadoo uu ka tagay madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qorqor ayaa xalay soo saaray liiska musharaxiinta 2 kursi ee aqalka sare ee ku harsanaa maamulkaasi. qorqor ayaa musharaxiinta 2 kursi ee uu soo saaray waxa uu kala tartansiyay sida tan kow Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo kamid ahaa xildhibaanadii golaha aqalka sare ee waqtiga xilheyntooda ay dhamaatay waxaa la tartamaya Cawil Nuur Cali halka kursiga labaad ay ku wada bartami doonaan Cabdi Cismaan Xareed iyo sidoo kale Mahad Aadan Guuleed. qorqor ayaa sida muuqata liiskan aan ku soo darin madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo sheegay inuu musharax u yahay kursigan uu ku fadhiyo Qeybdiid kana digay in aan liiska lagu soo darin. qorqor ayaa sida muuqata liiskan aan ku soo darin madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo sheegay inuu musharax u yahay kursigan uu ku fadhiyo Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid kana digay in aan liiskan lagu soo darin. Xaaf ayaa laga hayaa erey caan baxay oo uu ku yiri qiyaamaha ayaa dhici doona haddii aan la igu soo darin liiska
wuxuuna sheegay in dagaal beeleed uu ka dhici karo Galmudug. Waxaa jira warar sheegaya in Xaaf uu isku soo sharaxi doono kursiga Axmed Macalin Fiqi oo ay isku jufo hoose yihiin, taas oo qayb ka ah dagaalka maalmahan u dhaxeeyay Fiqi iyo Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor. Xogta rasmiga ah ayaa la kala ogaan doonaa saacadaha soo socda maadaama uu liiskan hadda uu soo baxay. kursiga labaad ee uu Qoorqoor soo saaray musharaxiintiisa ayaa waxaa leh beesha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, waxaana hore ugu fadhiyay Senator Cabdiwaaxid Cilmi Goonjeex oo isna laga tagay. saaxiibayaal daawadayaal, warkii aad ka daawanayseen Runsheeg TV waa inaga inta aad ku mahadsantihiin daawashada warkan midkiisa xiga intaanu dib u kulmi doono. Nabadgelyo.